السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابي أدي بند سلامية ملك استودع في الدنيا كجوكتا بإذن الله تعالى مانتا وحين قاعدة ديقتونا أين الفقوريتونا وأحبطنا أين كبرنتونا بو كميد بوغاك توقع عن سنة إلا قري أرهيم مالية يهور مرينتا دقالها قفكا بوغان السقاهي وحو كميده بوغاك توقع عن سنة إلا قري أرهيمها لو يقان مالية شخصية ديت كهاد لما يمنو مالية دولتها مالية أوروردا واوين وحين قاعد لنا مالية أدقي أنا جاي خصية لعقت هاري سوقشة يسيدنا ومعرينيو sidii aanu korin lahaa buuggan waxaan oran karnaa waa buug ugu caansan ugu hadal haynta badan leh ee arinta laga qoray buuggan isaga marka laga waramayo waxa laga sameeyay wax ku dhow 230 milyan oo nuqul inta waxa dheer buuggan isaga waxa loo tarjumay 50 luqadood oo kamid ah luqadaha caalamka ayaa loo tarjumay buuggan isaga waxaan halka ka arkaynaa markaa inuu yahay buug aad iyo aad ugu caan baxay mowduuca uu ka hadlayo insha Allah ta'ala مقال كان يسقى أفكارت جودة يكون مهمسن إن سلاي أدقي أنا جبا وحداً بينو طريقنا يعني كله ذاك دونا يكفي سونكس 10 كجهرية نينك قراية هي مركبوك كانوا قراية سد مجا بوك كم وقطبة وحوق يا ود وصار الشيكو لبنين واللبضة بكتل ما إني أبيهين ككوباد وانينك أبها نبتة أما biological father وأبها نبتة أردلي وكوكو أبتر سنايو نينك سنين صبوا الله أبوها نين جامعة أبوها nin shaqaale ah buu ahaa wuxuu ahaa dadka aaminsan in lagu hodan noqdo laguna dhergo farahaagana aad suba kaga muudsan kartid shaqada waa dad doonaysa inaad hodan noqoto weey halka aabaha kale uu sheegay uu yahay aabbo hodan ah semaha aabihiisa dhabta ah saaxiibkiisa runta ahaa ama saaxiibkiisii uu la saaxiibka ahaa yaraantiisa waa odaygii dhalay wuxuu ahaa nin ganacsada ah wuxuu ahaa nin haba yaraatee wax aqoon ah aan lahayn halka kale professorka uu ka ahaa laakiin si fiican ugu faradhuudhuban arrimaha maaliyadda halka waxaan ku arkaynaa in marka ugu horeysaba wuxuu ku siinaya sawir ah in aqoonta uu qofku leeyahay hadduu doono PhD ba ka sito waa sida bihi inaanay taasi sheegayn inuu halka lacagta ku wanaagsan yahay korinta dhaqaalahana ku fiican yahay ka kalena aqoonta lahayn bal bulshadeena u fiirso dadka inta badan jaahilka ama ba aan soo barin dugsiyada iyo jaamacadaha waxbarashada ayaa inta badan dadka raasamaalka iyo lacagta culus ee wadanka iyo dalka dhex taala oo dadka gacanta ku haya marka iskuma xidhna inaad aqoon dheer aad yeelato iyo inaad hodan ahaato mararka qaar kaas aan waxba aqoonta aan lahayn ayaa kaaga fiican halka maaliyadda kaasi marka waa 10ka koobaad oo inoogu sheegay inaanay waxbarashadu iyo shaqooyinka joogtada ah 9 ilaa 9 aad ka shaqaynaysid inaanay ahayn mid ku sababi karta inaad hodan ku noqoto 10ka labaad in buuggan isaga aynu ka barnayno waxa kamid ah in uu qoraagu si aad ah oo faahfaahsan uga hadlay inay muhiim tahay inaad aqoon maaliyadeed aad u yeelatid lacagtaada inta badan waynu naqaan sida loo shaqeysto laakiin ma naqaan sida loo maareeyo lacagta maareynta lacagta waxaan ka hadlayaa habka loo bixinayo habka loo kaydsanayo habka loo korinayo iyo habka wax loo maalgashado intaasi waa aqoon u baahan inuu qofku toos u barto ama dadka way araga uu ka barto sida awgeed waxa uu xoogga u saaraya ninka waxa uu qoraag ahay inay muhiim tahay inuu qofku uu aqoon wanaagsan u yeesho maaliyadda sidii uu korin lahaa waxa soo galaya iyo sidii uu yareyn lahaa waxa ka baxaya iyo sidii uu maalgashan lahaa xoolihiisa wixii u soo hadhay qodob aad u xiiso leh ayaa markuu tilmaamay hodannimada la sheegay waa maxay wuxuu sheegay in hodannimada la sheegay ay tahay inta maalmood ee aad noolaan karto shaqo la'aan يعني haddaan ka soo qaaday inaad qof shaqaalaad ahaan jirtay weligaaba wax ka shaqayn jiray inta maalmood ee mushahar la'aan aad noolaan karto ayaa loo yaqaanaa inuu qofkaas hodan yahay marka haddii aad haysato wax bil kugu filan hodan bil ah ba tahay haddii aad haysato wax sanad kugu filan hodan baa tahay muddo sanad ah sidaa awgeed wuxuu isagu ku cabirayaa ama uu ku qeexaya in hodantinimadu ay tahay inta maalmood aad noolaan karto camal la'aan ama mushahar la'aan taasina waxyaalaha xiisaha leh ee aan ka arkay buuggan isaga aqana qoraagahay marka uu buuggan isaga uu kaga hadlayo farqiga u dhaxeeya dadka hodanka ah iyo dadka saboolka ah waxa ku tilmaamaya dadka hodanka ah inay yihiin dadka mar walba koriya ee wax ku dara ee buunbuuniya hantida ay leeyihiin waa dadka mar walba koriya ee wax ku dara hantida ay leeyihiin halka dadka saboolkiina yihiin dadka mar walba wax ku kordhiya deyntii awalba lagu lahaa kaba soo qaad ninka qaniga ah oo kale marka uu lacag u doonayo inuu koriyo lacagtiisa wuxuu gelinayaa lacag amaba hanti ay lacag uga sii dhalanayso sida dhulal oo kale guryo waaweyn oo dhisto hadhow kiradiisa u cuno oo kale
arrimahaasi markaa waxay si yaro fudud oo kooban laakiin waqtiga dheer wax badan ku kordhinaya waxay kor u qaadayaan hantidiisa iyo lacagtiisa iyo hodintinimadiisa. halka ka faqiirka ahina maruu moobil cusub iibsado, gaadhi cusub iibsado, arrimahaasi ay mar walba ay hoos u dhigayaan waxa weeye hantidii uu lahaa. marka mar walba haddii aad doonayso inaad hodan noqoto waxaad ku dadaashaa inaad kor u qaaddo hantidaada oo waxa weeye dakhliga kusoo geliya aad kor u qaaddo, hoosna aad u dhigto waxyaalaha kaa baxaya. arrinkaasina waa casharada ugu waaweyn ee sida aadka u ballaaran uga hadlayo qoraagu buuggan dhexdiisa. casharka saddexaad ee ninkan qoraagu ka hadlayo waxa weeye in qofku marka ay tahay inuu shaqo tago inaad u shaqo tagtid shaqo aad ka helaysid marka laga imaado maaliyadda iyo lacagta iyo mushaharka kusoo galaya aad ka helaysid khibrad mustaqbalka dambe wax kuu taraysa. wuxuu tilmaamayaa dadku inay ku kala duwayn halkaa isaga ah. dadka qaarna ay u shaqo tagaan meel bariis iyo mushahar keliya ay ka helaan, dadka qaarna ay u shaqo tagaan meel xirfadoodu ay kobcayso, aqoontoodu ay kobcayso, dadka ay la kulmayaan ay fara badanayaan. taasina mustaqbalka dambe saameyn wanaagsan waxay ku yeelanaysaa hodantinimada iyo hantida qofkaasi uu leeyahay. sidaa awgeed wuxuu talo kugu siinayaa in meelaha inta badan suuqooda uu qarxo ama uu socdo amaba koritaankoodu wanaagsan yahay inaad u shaqo tagto halkii aad u shaqo tagi lahayd meel wax allaale wax kuu kordhaa aanay jirin lacag mooyaane. kaasina waa cashar kaloo muhiima oo buugga si aad ah qoraagu uga hadlay. ninkan qoraaga ahi waxyaaluhu ku caankaya waxaa ka mid ah buuggan iyo meelaha kale oo wax ku soo gudbiyaba inuu dadka uu ku dhiirigeliyo inuu qofka u yeesho meelo kala duwan oo uu dakhligu ka soo galo. oo tusaalahaan oo kale haddii aad shaqaalaha tahay shaqada mushaharkeedu waa inkamka koowaad ee kusoo galaya. 2 xirfadan aad ku shaqaynaysid lafteeda waa inaad ugu shaqaysataa meelo kale oo aan ahayn goobta shaqada ee aad joogto. waqtiyada fasaxa tayo kale aad ka faa'iideysanaysaa, waqtiyada aanad shaqo hayn baad ka faa'iideysanaysaa. dabadna khibradaadii haddana waxay ku dhashay mar labaad lacag ayay ku dhashay. haddana mar saddexaad waxaad ku dadaalaysaa in meel kale ay wax kaa soo galaan. markaa mar walba ku dadaal halkii meel kaliya uu dakhligu kaa soo geli lahaa in meelo fara badan uu dakhligu kaa soo galo. taasina waqti dheer kadib, sanawaad yar kooban kadib waxaa loo badinayaa in waxa ay kuu dhaweynayso wadada hodannimada. taasina waa cashar kaloo muhiim ah oo buuggan aad ka heli doonto. ugu dambeyn waxaan kusoo gabagabeynaya qodobka ugu muhiimsan oo ah buuggan 3 arrinba waa aan ku daraya. waa marka koowaad buuggani caan isagoo daafaha dunida dadka oo dhan ay akhristaan oo ay yar tahay qof aan buuggan aqooni. haddana buuggan nuxurka ku jira waa nuxur aad iyo aad u kooban. taas markaa waxaynu odhan karnaa buuggani waa overrated. intii waxa weeye uu lahaa maaha in ka badan oo ammaan ah ayaa la saaray. marka haddii aad maaliyadda aad wax ka akhrisanayso buuggani maaha buugga rasmiga ay tahay inaad akhridee laakiin ishun dulmari oo saas ha ugu sii raagin. arrinka labaad aan ku daraya waxa weeye ninkan qoraaga ahi shaqada meel xun buu kaga soo hadhaya. wuxuu ku tilmaamaya inay adoonnimo tahay, wuxuu ku tilmaamaya inay tahay dib u socod. waxaanu mar walba dhalinyarta ku dhiirigelinaya in iyagu ay furtaan ganacsiyadooda, inuu qofku uu noqdo qof madax bannaan. taana haddaynu meel kale ka eegno waxaynu arkaynaa inay tahay dood waxa weeye jaban oo aan dadka aan lagu qancin karin. oo qof waliba hadhow markuu ganacsi uu samaysto dee se uma baahna cid u shaqaysa. marka shaqadii uu diidayay hadda meel kale ayuu ka ogol yahay. marka halkaana waxaynu ka arki karnaa in shaqadu aanay ahayn sida ninkan uu sheegayay wax badan halkaana waxa weeye uu ku qaldan yahay. ugu dambeyn buuggan haddaad si aad u eegto wuxuu khuseeyaa dad iyagoo waaweyn marka horeba lacag haysta. ninka adigoo kale ah iyo anigoo kale ah ee hadda uun soo waxa weeye shaqo fiican haysta amaba hadda uun soo kacaya sidaada oo kale. inta badan buuggan wax badan uu kordhinaya haba yaraatee ma jirto. buuggan wuxuu si gaar ah uga hadlaya dadka marka horeba lacag haystay, kuwaasunba sidii lacagta ay kordhin lahaayeen ay u naxnaaxin lahaayeen uu ka hadlayay. dadkii inagoo kale ahaa inta badan talooyinkiisu ma khuseeyaan. halka waxaynu kusoo gudbiyey talooyin iyo casharo casharadii ugu muhiimsanaa ee buuggan aan ka helay. haddii inuun aad fikradaad ka heshay ku jirto arrimahaaynu soo sheegnay halka hoosead nagula soo wadaagi kartaa. intaynu ku kulmayno muuqaal kan xiga waxaynu ku kala teganaysaa. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.